waxaan ka hadli doonaa madaxweynayaasha ayagoo xilka haya shirqool lagu dilay. madaxweynihii ugu horeeyay ee la dilay wuxuu ahaa Pedro Blanco Soto, waa madaxweynaha dalka Bolivia. wuxuu muddada hayay kaliya 6 maalmood. wuxuu qabtay 26 Diseembar 1828 waxaana la dilay 1 January 1829. wuxuu ahaa sarkaal dhammaystiran. wuxuu u dhaqaaqi jiray dalka Peru inay ka madax banaanaato dalka Bolivia, waxaana dilay mucaaradka ka soo horjeeday fikirkaas. madaxweyne labaad isagoo xilka haya la dilay wuxuu ahaa Felipe Santiago Silveira, waa madaxweynihii dalka Peru. wuxuu xilka ka tuuray madaxweynihii ka horeeyay. wuxuu ahaa sarkaal aad u da'yar, da'diisana waxay ahayd xilligaas 29 jir. xilka wuxuu qabtay 25 February 1835 waxaana dilay taageerayaashii madaxweynihii ka horeeyay. waxaana la dilay 7 February 1836. Jose Santos Guardiola wuxuu ahaa madaxweynaha dalka Honduras. talada wuxuu qabtay 17 February 1856 waxaana la dilay 11 January 1862 waxaana dilay ciidamadiisa gaarka ah markii ay khilaaf kala soo dhexgalay. Abraham Lincoln wuxuu ahaa madaxweynihii 16aad United States of America. wuxuu jagada qabtay 4 Maarch 1861 waxaana lagu dhex dilay tiyaatarka gudihiisa asagoo taabanaya riwaayad. waxaana dilay mid ka mid ah jilayaasha riwaayadda. sanadku wuxuu ahaa 15 Abriil 1865. sababta loo dilay waxay ahayd wuxuu u dhaqaaqi jiray madowga Mareykanka inay helaan cadaalad iyo sinaan. Venancio Flores wuxuu ahaa madaxweynaha dalka Uruguay. xilka wuxuu qabtay 20 February 1865 waxaana la dilay 15 February 1868 waxaana dilay kooxo hubeysan aan heebtooda la garanaynin. Gabriel Garcia Moreno wuxuu ahaa madaxweynihii Ecuador. xilka wuxuu qabtay 2 Abriil 1861 ilaa 3 Agoosto 1865. mar labaad xilka wuxuu ku guuleystay 10 Agoosto 1869 ilaa 6 Agoosto 1875. marka saddexaad markuu xilka ku guuleystay, xisbiga tartamaya waxay u arkeen inuu yahay kaliistaliye, kadibna way dileen. Juan Bautista Gil wuxuu ahaa madaxweynaha dalka Paraguay. talada wuxuu qabtay 25 November 1874 ilaa 12 Abriil 1877. waxaa la dilay isagoo wadada maraya oo la socoto labadiisa sarkaal. waxaana dilay 3 nin oo hubeysan. wadanka markaas waxaa ka jiray xasilooni daro iyo dagaalo sokeeye. James Abraham Garfield wuxuu ahaa madaxweynaha United States of America. waxaa la doortay 4 March 1881 waxaana dilay Charles James Cato. asal ahaantiisu ahaa Faransiis, laakiin wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka, mana garanayna luqadda Faransiiska. wuxuu ka mid ahaa senatarada jamhuuriga. markii cadaadis la saaray aragtidiisa iyo qorshihiisa, waxaa ku dhacay uqdad nafsi, wuxuuna dilay madaxweynaha James Abraham Garfield. sanadkii la dilay wuxuu ahaa madaxweynaha 19 September 1881. Sadi Carnot wuxuu ahaa madaxweynaha Faransiiska. xilka wuxuu qabtay 3 December 1887 waxaana dilay kooxo shufta ah. shuftadaas
waxay asal ahaantooda kasoo jeedeen Talyaaniga. Waxaa lagu magacaabi jiray Santa Geronimo Casario. Madaxweynaha waxaa la dilay 25 Juun 1894. Dilkiisa waxaa loo aaneynayaa khilaaf dhulka ka dhexeeya Faransiiska iyo Talyaaniga. Juan Edgar de Borda wuxuu ahaa madaxweynihii Uruguay. Xilka wuxuu qabtay markuu iska casilay madaxweynihii ka horeeyay 21 Maaj 1894. waxaana dilay saaxiibadiisa ugu dhow. Waxay ahaayeen isku xisbi, waxayna u arkeen inuu talada ku qabsaday si sharci darro ah. waxayna dileen 25 Agoosto 1897.